waxaa sii kordhaya weerarada la xidhiidha mindiyaha isla dhacayaan dhalinyarada ku nool magaalada London ee caasimadda wadanka Britain sanadkan ay ku guda jirnay 2019 ayaa waxaa weeraradaasi mindiyaha dhalinyarada isla dhacayaan u dhintay 86 qof oo dhalinyaro wadooyinka magaalada London ayaa u muuqda kuwaan ammaan u ahayn dhalinyarada ku nool magaaladaasi taasina ay sababtay falalka la xidhiidha mindiyahaasi amaba amnidaasi ay isu geysanayeen dhalinyaradaasi gaangiska amaba badcado sanadkan ayaa waxaa lagu dilay suuriinimada amaba luuqyada magaalada London ee caasimadda wadanka Britain toddoba wiil oo Soomaaliya falalkan dilka ay geysanayeen kooxahani badcada amaba gaangisku ayaa noqonaya kuwa salka ku haya iibinta draagiska iyo gaarsiga ka dhaxeeya dadka arrimahani ku lugta leh xabsiyada dalka Britain ayaa buuxa waqtigani waxaana la sheegayaa tirada Soomaalida ku jirta ay gaadhayeen xabsiyadaasi 304 qof kuwaasi oo dhalinyaro u badan waalidiinta ku nool magaalada London ee caasimadda wadankaasi Britain ayaa kuwa farta ku haya kolka ay caruurtoodu dibadda uga baxaan amaba ay goobo ganacsi wax u doontaan in ay ka walwalaan in ay dib ugu soo noqdaan caruurtooda oo nabad qabta